waa laga reebtay marxuumku marka hadda waxa bada ka dawrida markuu baxo waxa dareemay inuu leerka dabay meeshii leerka yarka oo ka shidnay waa CCTV-dii mootadan soo socoto ay saariin labada eedeysane meeshaan ugu dagaya marka labada eedeysane meeshaan ay ku dagayaan waa kaas waa u jeedaa dhacsada waa fanaacdaanka waa dhaca caadi u dhacay macna mootadas oo istaajina leer biliq u sii xoog ku maray meesha waa mooday إذا نفتكر إن الدعاء الرو معنا وأسرة تقلوين معايا لي عكسوا أدا يقول ديار جروبين هي كان لقولك توتوسنا يو قعنوا تكتاجني كان وحدو جوا ومود مدان لبضوا مد مركي دعاية ماشي مركي تكبرتكم يلا من قدومي حل جنوا 6 ساعة لباتني 6 دقيقة واتنا مركي موتوا الاستاجي وعلى صوت دجنا محمود كاد أنت كهلاي وعلى صوت دجنا دعصر مرحومك وحقول رجعي ودنا كان جرو وعبد القادر عبد القابي مرنا قبل عمنايو دعسده موتولي والدجي دعسد نيكولا مربا موتولي ميشو كل عمنا واقاس حبدي وكو قمنا انت سو دن خولي maxaati meesha maxkamadna aad u faantaan raba qaab socodkaasna inay qiimeyso sidoo kalena qaabka ula macaamilaya mootolaha oo mootadafowga oo ku saleysan jidgooyada 8 saac oo habeen mootada aad jid soo gashay waxa saaran marxuumka iyo maxmuud kadii aan maxkamadda horkeen mootada marka qaabka loo istaajiyay goofana laga istaagay oo soo sheegay maxmuud goofana qore laga saaray soo degno waxa ku bilaabay Cabdullaahi dhacsigo ee sanad labaad sanad koowaad markuu wuxuu aadaa dhanka rakaabka ah oo Nasruddin marxuumku uu dili doono sanadaha labaadna wuxuu aadaa dhanka darawalka mootolaha oo maxmuud ah asaas soo dejinay mootoli waa soo degay marka laakiin marxuumku meeshu saaray marna markuu wuxuu dhaxmara sanad koowaad Cabdiqadar iyo marxuumku waxa xusid mudan isla waqtiga hadii la hubinayo wuxuu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya idikaarka wata waxa noo sheegay meesha aan keenay maxmuud marka taas ba jirto macna waxa loo socdo mobilka laga dafsan marka mobilkii istiya bilaabay marka muranka xumaaday qoriga gadaal la soo baxaa sana Cabdiqadar waa markuu xabada uu ku ridayo xabada waa ku dhacday waa kaas waa xabadii labaad oo dhacayso waay dhimbisheeda caadi loo arkaa qoriga kula dhagay xabad saddexaad ku dhacday qoriga waa laga reebtay marka marxuumku marka hadda waxa bada ka dawrida xabadaas waa xabada ku dhacayso eedeysanaha labaad ee inta ku dhacayso waay madax ka sareyso waana xabada keentay raadraac iyo qoriga uu ka reebtay marxuum markaan qoriga u haystaa bastooladiisna uu wataa waa kala wareegay markuu baxo waxa dareemay inuu leerka dabay meeshii leerka yarka oo ka shidnay waa dalmarabada soo shidma kaas waa mobilka marka qoriga waa laga reebtay mobilka waa ka dhacay laakiin labada dhinac ma haleelin mobilka dhinacaas bacaadkaas uu ku dhacay kabad aad u faantaa malaabasha gudoomiye markii qoriga la helay wuxuu baarista iyo xafiiska xeerlaalintaba iyo laanta baarista dambiyada qaybta baarista dambiyada CAD isku hooleen in la helo galfeelka ciidanka maadaama la haayo qor lambarka yaa ku qoran waxa la soo ogaaday xogta askariga ayaa la soo ogaaday Cabdiqadar in la dhaho hooyadiis xaawal dhaho 2004 uu dhashay laama amnigu wuxuu sheegay inuu 17 jir yahay meeshaana beenisay 2004 ayuu dhashay goobta dhalashada cida damiinka ka yaa damiinka waa kana waa nabadoonka damiintay ee ciidanku damiinta waa intaas ka bacdi uu gudoomiye waa kan baskooladu watay marxuumka iyo qoriga lagu dilay marxuumka sawirka marxuumka waa kan waa sigo la dilay iyo asaga oo taagan uu gudoomiye mootadii uu ku dhig baxay waatana muwaadinkan wuxuu saan ugu dhig baxay oo dhigaas ka qobtay oo qabta aragti guudka ka dhigay cadaanta aheed waxa waaye xabadii oo ku dhuftay Cabdiqadar